waxaan ka hadlayaa ciidanku wuxuu yahay marka hore iyo waxa laga rabo ciidanku ama xooga hal la yiraahdo ama qaran hal la yiraahdo ama military hal la yiraahdo waxa loo qortaa ciidanka noocaas oo dawladdu u qorataa inuu ilaaliyo xuduudaha dalka cirka iyo dhulka iyo badda waajibaadkiisa guud waa ka ciidanka waxa kale oo wax ka qabtaa wixii dalka iyo dawladda ka hor yimaada rabo inuu kufiyo ama burburiyo wuxuu kale wax ka qabtaa bulshadaas dhexdeeda wixii amniga dawladda bilayska iyo nabadsugidiya ka xoweynaada ayuu gacan siiyaa aad buu xilka ciidanka loo igmaday uga soo baxay aad buuna ugu dhabacareegay ciidanka aan shaqeynayna amar ka qaadanayn markuu doona tagaya siyaasadda ogolayn buu mushaar siinay kuwale marka hartibo eriyay daarood buu eriyay war waxba ma eriyana ninka shaqeynaya oo ciidanka runta sidoo yahay uga shaqeynaya oo saraakiisha amar ka qaadanaya oo qabiil ka baxaya oo deegaanka ka tagaya uu ku qasban yahay taliye iyo dawladda iyo madaxweynaha xuquuqdiisa in la siiyo waxaan leeyahay nabadda loo daayo dadka la kicinayana laga daayo qabiilka lagu hadlayo ni somaliland doonaya yaa reer hebel